maxaad ka taqaan daawade fadeexadii abi dunida ugu xumayd ee ka dhacda taariikhda aadamaha dunidan casriga ah inta la ogyahay fadeexadani oo la magac baxday Panama Papers ama waraaqihii bannaa ee Panama fadeexadani oo ka dhacday dhammaan boocaad kasta oo ka mid ah koonkan aynu ku noolahay ee dunida ayaa inta badan saameyn xun ku yeelatay qaar ka mid ah madaxda caalamka boqorro ganacsato iyo qaar ka mid ah shakhsiyaadka dunida ugu caansan oo ay ku jiraan filim sameeyayaal ciyaartooy iyo jilayaal caalami ah fadeexadani oo la xidhiidha xatooyo iyo la baxsi cashuur ayaa idaha ka rogay koox wariyaal ah oo ku buhoobay mihnada saxaafadda kuwaasi oo fayday bartamihii bishii abriil ee 2016 arrin loo aqoonsaday khiyaamadii ugu xumayd abid ay ku kacaan shakhsiyaad gaar ah kuwaas oo samaystay duni kale oo qarsoodi ah oo bulshada kale ee caalamkuna ay ka warqabin afartii bishii abriil ee 2015 oo ku aadan maalin salaasa ah ayaa uu qof magaciisa ku sheegay John Doe oo ku yaboohay xog xasaasi ah oo khatarteeda leh ilwareedan oo qarisay inuu si buuxda u sheego waxa uu yahay iyo inuu tilmaan sugan ka bixiyo aqoonsiga shakhsiyadiisa sabab ammaan awgeed ayaa sheegay inuu hayo xog culeyskeeda lagu qiyaasay 2.6 terabytes oo u dhiganta 12 milyan iyo bar waraaqo qoraal ah oo tibaaxaya fadeexad huursaneed ku dhowaad qarni barkii taasi oo ay ku kacaan shakhsiyaad intooda badan la yaqaano xogtani oo ka shafaysa shaqada dhabta ah ee ay ku haysay dunida shirkadda lagu magacaabo Mossack Fonseca oo xafiiskeeda guud ku yaala dalka Panama ee ku yaala marinbiyoodka Panama Canal ee kala qaybiya labada qaaradood ee waqooyiga iyo koonfurta Ameerika ayaa ku magacawnayd shirkad xagga la talinta sharciga balse loo ogaaday inay tahay suuq madow ilwareedda xogta soo gudbisay oo aanay ujeedadeedu ahayn inuu lacag dhaafsado xogtan uu ku yaboohay ama uu magac ka helo ayaa subax qura la soo xidhiidhay wargeyska ka soo baxa dalka Jarmalka ee lagu magacaabo Shayton Seto waxaana uu sheegay in ujeedadiisu tahay oo kaliya inuu fashiliyo dambiyada khatarta ah iyo dhagaraha qarsoodiga ah ee ku huursan shaqada rasmiga ah ee ay qabato shirkadda Mossack Fonseca wargeyska xogtani helay oo lagu magacaabo seen hore u soo sheegnay Shayton ayaa ku qaadatay inuu la wadaago xogtan ururka ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta caalamiga ah ee lagu magacaabo International Consortium Investigation Journalistics oo loo soo gaabiyo ICIJ ururkan oo ka kooban khubaro ku talax tagtay mihnada saxaafadda nooceeda sida sirdoonka u shaqeysa ee loo yaqaan investigation journalism oo ah qaab xeel dheerayaasha saxafiyiinta ay u dabagalaan dambiyada khatarta ah ee aan si fudud ugu ogaan karin kuwaasi oo xogtani la fagurayay muddo sanadaha si ay u hubiyaan xaqiiqnimada xogtani iyo inay tahay mid dhab ah oo ay wax ka jiraan haddaba maxay ogaadeen maxay soo saareen war ay soo saareen muddo sanad ah kadib oo ku beegan 26 bishii abriil ee sanadii 2016 waxay ku sheegeen umuuro la yaab leh oo mar qura ama ka ku riday bulshada caalamka ee ku xiran warbaahinta dunida iyo shakhsiyaadkii magacyadooda ka soo dhex baxeen xogtani ay faafisay ururkani taasi oo wadnay gow ku noqotay isla markaana halista taabatay qaar ka mid ah madaxda maalqabeeno iyo shakhsiyaad caan ah oo sumcad ku lahaa caalamka kuwaasi oo qaarkood wajahayaan xaalado caafimaad darro oo khatar tan iyo markii ay dhagahooda soo gaadheen wararka tibaaxaya umuurahan la yaabka lahaa ee daaha laga rogay haddaba maxaa dhacay intaasi kadib xaggay sartu ka qurantay cilmi baadhayaasha iyo khubarada saxaafadda ee ku kale ee xogtani ku naxayna waxa ay noqdeen kuwa galay mashquul dheeraada si ay u rogrogaan oo u sii bisleeyaan xogtani la faafiyay inta ka dhiman waxaanay baaritaanadoodii dheeraadka ah ay sameeyeen ku ogaadeen in shirkadda Mossack Fonseca ay tahay suuq madow oo ay gacanta isugu dhiibaan shakhsiyaad gaar ah sheekadan musuq ah oo ku qotonta xatooyo iyo la baxsi cashuur qaran oo ku waajibi lahayd shirkado gaar loo leeyahay waxa la ogaaday inay soo taxnay tan iyo 1970 ilaa 2015 oo ahayd xilligii la fashiliyay sirtani fadeexadan oo galaafatay qaar ka mid ah madaxda caalamka kuwaasi oo xilalkii ay hayeen ku waayay kadib markii maxkamado la soo taagay ayaa saameyn ku yeeltay sidoo kale shakhsiyaad caan oo isugu jira ciyaartooy jilayaal iyo maalqabeeno kuwaas oo iminka ay qaarkood maxkamad caalami ah ku socdaan halka ay qaarkoodna lagu riday xukuuno kala duwan kadib markii la helay inay fadeexadani ku lug leeyihiin daawadayaal weynooyo qaybta labaad oo aynu ku eegayno fadeexadan la magac baxday Panama Papers ama waraaqihii bannaa ee Panama iyo qaybta labaad oo aynu ku soo gabagabeyn doono umuurihii la yaabka lahaa ee cibaarooyinka mudnaa si aad xogtaasi u ogaato ku xidhnow oo la soco isla markaana subscribe garee war cadeeyo channel